بسم الله الرحمن الرحيم. شركة قلها وزيرة عادية maanta ka dhacay magaalada Muqdisho waxa shir gudoominaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre. Shirka waxa looga hadlay arrimo badan arrimaha tan waxaan warbixin ka dhageysanay xisaabiyaha guud ee qaranka Faadumo oo golaha ka siisay warbixintan iyo intii xilka la wareegtay wuxuu u qabsamay sida ay wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiyaha guudba uga wada shaqeeyaan dardargelinta dib u habeynta iyo maamulka maareynta maaliyadda oo runtii aad garanaysaan in horumar ballaaran laga sameeyay hay'adaha caalamka sida bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka IMF-na ay ula shaqeeyaan wasaaradda iyo kaabayaasheedaba. Warbixintaas kadib wasiirka amniga ayaa laga dhageystay warbixin ku saabsan xaaladda amniga dalka iyo waxyaalaha qabsoon. Wasiirku waxa uu sheegay in howlgal qorshaysan oo ciidamada ammaanku ay ka fulinayeen degmada Afgooye ay ku guuleysteen in ay soo qabtaan 29 qofood oo runtii dad lala xiriirinayo kooxaha argagixisada oo ay ka mid yihiin eedeysane Aweys Qadar Axmed oo ahaa amiirka qaybinta howlgallada degmada Afgooye, eedeysane Cabdulaahi Maxamuud Muqtaar Ilay loo yaqaanay farsamayaqaanka qaraxyada oo gacanyaro u ahaa Cabdiweliga. sidoo kale waxaa ku jiray eedeysane Saalax Cabdiqaadir Cabdulle oo ah madaxa lacagaha sakawaadka. waxaa isna ku jiray Maxamed Aweys Cali oo amniyaadka ka tirsanaa, Maxamed Xuseen Salaad oo Yemeni loo yaqaanay isna amniyaad ka tirsanaa, Maxamed Cali Xasan isagana amniyaad ka tirsanaa, Bakar Maxamed Yacquub oo isagana ahaa miiniiste ahna tashkiiliyaha dhalinyarada. waxaa kaloo isna ku jiray eedeysane Sakariya Salaad Maxamed amniyaad ka tirsan, Aweys Kamaal Sheekh Muxudiin amniyaad ka tirsan. dhammaan 29 gacanta ayaa lagu hayaa waxaana socota baaris sidii loo horgeyn lahaa sharciga. sidoo kale waxaa iyadana lagu guuleystay in gacanta lagu soo dhigo Cabdiweli Cabdi Daa'uud oo horay dil ugu geystay marxuumka la yiraahdo Guuleed Cabdiqaadir Muuse. sarkaalkan oo ka tirsanaa booliiska ahaana waaxda ilaalinta canshuuraha ayaa isagana gacanta lagu soo dhigay oo ku jira. wasiirku wuxuu sheegay in hay'adaha amnigu ka go'an tahay in la dardargeliyo sidii muxuu ahaa amniga iyo nabadda looga shaqeyn lahaa. wuxuu ka digay dadka abuuraya qalqalka iyo been abuurka arrimaha amniga. arrimahaas kadib ayaa wasiirka qorsheynta Jamaal waxaa laga dhageystay warbixin ku aadan mashaariic ay dawladda federaalku hore u dalbatay lana soo ansixiyay lana soo ogolaaday oo ay ka mid yihiin wadooyinka dhismaha wadooyinka qaarkood dhawaana bilaaban doonaan. waxaa kaloo iyadana jirto mashaariicdaas ka mid dhismaha hay'adaha dawladda oo ayagana ay caalamku naga ballan qaadeen oo iyadana meel fiican maraysa. ra'iisul wasaaruhu wuxuu aad muxuu ahaa hoosta uga xariiqay muhiimadda ay leedahay dib u dhiska dalka si shaqo loogu abuuro dhalinyarada isla markaana muxuu ahaa dhismaha hay'adaha ay muhiim u yihiin. kadib wasiirka arrimaha diinta iyo awqaafta ayaa laga dhageystay warbixin in wasaaraddu qorsheynayso in la qabto shirweyne qaran ee culimada Soomaaliyeed isugu yimaadaan magaalada Muqdisho bisha December si loogala wada tashto kaalinta ku aadan culimada diinka, doorkooda ku aadan la dagaalanka argagixisada iyo bacdama culimada diinka yihiin bulshada qaybaheeda ugu muhiimsan sidii dawlad wanaagga iyo nidaamka dawliga loo gaarsiin lahaa dalkan doorashooyinkana lagala tashan doono. intaas kadib golaha waxaa la horkeenay hindis sharciyeedka nidaaminaya naqshadeynta iyo magaalooyinka, horumarinta dhismaha iyo maamulka dhulka oo wasiirka howlaha guud uu soo gudbiyay. dood kadibna golaha wasiiradu waa soo darsi doonaan kadibna usbuucyada dambe ayaa la keeni doonaa si loo ansixiyo. sidoo kale wasiirka dastuurka ayaa wuxuu ka warbixiyay shir shalay ku qabsadeen magaalada Muqdisho oo loo yaqaano shirka siyaasadda loo dhan yahay oo hay'adaha dawladda dawlad goboleedyada iyo beesha caalamkaba ka wada qayb galeen taasoo ahmiyaddeeda sidii loo dardargelin lahaa nidaamka doorashooyinka, dib u eegista dastuurka
federaaleynta dalka iyo xasilinta magaalooyinka laga xoreeyo kooxaha argixisada shirkaasna wuxuu caddeeyay in si wanaagsan caalamku maanta diyaar u yahay in dowladda federaalka iyo qorshaheedii in lagu dhaqmayo taasna aan uga mahad celinay beesha caalamka dowladda federaalkuna ay ka go'an tahay in howlahaas saas loo fuliyo shirkii maanta golaha wasiirada intaas ayaa ugu muhiimsanaa aad iyo aad u mahadsantiin